madaxweynaha iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland way ku mahadsan yihiin soo dhaweynta diiran oo aad nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigayga. soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha aad soo dhaweyseen waxay la macno tahay idinkoo soo dhaweeyay madaxweynaha salaantii uu igu soo kiin dhiibana iga guddooma. halkan ma ahan dawlad kale ama dal kale, halkan waxaa jooga shacabkii Soomaaliyeed oo leh qabiil walba oo Soomaaliyeed oo ay isu keentay Soomaalinimo. halkan waxaa yimid ra'iisul wasaarihiinii iyo wasiiradiinii iyo taliyaashiinii oo ah idinka adeegayaashiinii. waxaa idin yimid dad idinka idin shaqeeya oo shaqaale idina. waxaan rabaa markaa fikirka ah in loo arko in marti idin timid inaad u aragtaan inay idin yimideen dadkii dawladdiina idinka idinku matalayay, xaqna aad u leedihiin inay idin yimaadaan inaad la xisaabtantaan aad xaq u leedihiin. intii aan joognay halkan waxaa noo suurto gashay inaan aniga iyo madaxweynuhu yeelano wada hadal dheer, aniga iyo madaxweyne ku-xigeenadiisa iyo isaga, aniga iyo isaga iyo taliyaasha ciidamada ila socday, aniga iyo isaga iyo qayb ka tirsan golihiisa wasiirada iyo golahayga wasiirada. waxaan ka wada hadlaynay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dowladda Soomaaliyeed iyo dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. waxaa kaloo ii suurto gashay inaan arko salaadiinta, ganacsatada, dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland iyo madaxda reer Jubbaland iyo dad kale oo badan oo ka mid ah bulshada. sidii uu sheegay ugaaskii halkan soo istaagay, waa isu ugaasaynay waana dardaaranay, dardaarankiina waa sidaa. sidii uu sheegay madaxweyne Axmed ama aad ka dareenteen hadalkiisa, malaha hore waa u taqaaneene waa dareenteen inay wax hagaageen. sidii uu sheegay inta dhimanna waa dhammaystiraynaa, xamarna wuu noogu imaan doonaa. laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego markii hore oo aan imid Kismaayo iyo markii haddaba aniga iyo wafdigayga waxaa naloo soo dhaweeyey si diiran. waxaana rabaa inaan idiin sheego mar walba oo ay jirto mugdi ama dadka Soomaaliyeed ay dareemaan waxaa jira kala aragti duwanaansho, meel walba oo aan tago Soomaalinimadu way ka xoog badan tahay. taasi waxay astaan u tahay rajada u muuqata ummadda Soomaaliyeed. sababta aad u aragtaan mararka qaarkood in la isweydiinayo su'aalo waaweyn, sababta aad u aragtaan in la xisaabtamayo, sababta aad u aragtaan in cid walba oo Soomaaliyeed sidii gabadhii halkaas ka hadlaysay ay rabto in codkeeda la maqlo, waxa ay tahay waxaa soo adkaanaysa dowladnimada, waxaa kor u soo kacaya fahamka Soomaalinimada. in la isqabqabsado waa qayb ka mid ah dowladnimada, sababtoo ah isbeddelka isqabqabsiga waa in la kala tago. si marka dowladnimadeena ay u xoogaysato waxaa loo baahan yahay in la adkeeyo xarigga ama xarkaha dadka isku haya. kuwaasi waa maxay? waa inuu jiraa nidaam degsan oo caddaynaya waa maxay dastuurka aan rabnay inaan yeelano mustaqbalka, waa maxay awood qaybsiga ka dhaxeeya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, waa maxay khayraad qaybsiga ka dhaxeeya, waa maxay shaqooyinka ay kala leeyihiin, waa maxay sharciga mustaqbalka doorashooyinka dalka xadidi doona, waa maxay maqaamyada ay kala la yeelanayaan magaalooyinka waaweyn ee dalka, sidee baa dunida loola dhaqmayaa, siyaasad noocee ah ayaan rabnaa inaan ku shaqeyno 100 sano soo socota. su'aalahaas waaweyn ayaan hor taagan. su-aalahaas waaweyn waxay kalifayaan marka
mararka qaarkood inay khasab tahay in la xisaabtamo waxaa kaloo kalifayaan si dhalinyarada halkan joogta oo shacabka Soomaaliyeed ugu badan ay wax nooga dhaxlaan inaan wax meel ugu qorno inteena waaweyn oo hadda madaxweyne Axmed sheegay uu lahaa waxaa sii dhamaanaysa intii khibradda u lahayd dowladnimada waxaa nagu waajib ah marka inaan intaas dhamaystirno dhalinyarada aan la kulmay ama ganacsatadii aan la kulmay ama salaadiintii aan la kulmay ama madaxdii aan la kulmay ama ciidankii aan la kulmay cid walba oo aan la kulmay dareenka ay qabto waxay tahay inay ka welwelsan tahay Soomaaliya dariiqay ku socotaa xagee bay tegaysaa 10 ama 20 sano soo socota waxaan rabaa inaan idin sheego sida idinku aad ugu baraarugsantihiin in daawada kaliya ay leedahay ummadda Soomaaliyeed in daawada kaliya ee xalka lagu gaari karo ay tahay inaan kulligoon oogno Soomaalinimada taas ayaan ku shaqeynaynaa waxaan rabnaa inaan hortiina ka ballan qaadno midnimada ummadda Soomaaliyeed in laga shaqeeyo muqaddas inay tahay inay qalbigeena ku taalo ugu dambeyntii waxaan leeyahay shacabka reer Jubbaland inaad ogaataan maanta xaaladda dalku uu marayo dhaqaalihii dalkana uu soo hagaagaya ciidamadiina dib habeyn ayaa ku socota oo dib u dhis ayaa ku socda oo taliyaha idin sheegi doona ila socda arrimihiina bulshada iyo adeeg abuuridina waxa ku socda shaqo waxaa halkaas marka ka muuqata ama xiriir dibadeed ama mid guudeed ha aado horumarka aan hadda ku talaabsanay inaan u baahannahay kulligeen inaan wada fahamno ugu dambeyntiina wixii isku keenayn lahay aan adkayno waxaan rabaa mar labaad inaan idin mahad celiyo idinkuna dhiirigeliyo halkan safarkii aan ku nimid inuu ahaa safar miro dhal ah dardaarankii gabdhaha Soomaaliyeed ee reer Jubbaland dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland salaadiinta Soomaaliyeed iyo madaxda reer Jubbaland inaan sii qaadi doono madaxweynaha isagoo idinka wakiila iyo annaguna inaan sii wada shaqeyn doono sida uu sheegana mar dhow isaga iyo madaxweynaha inay sarki doonaan